السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaka waxaan u hambalyeenayaa golaha walaaleynta bulshada iyo qabyaaladiidka ayaan u hambalyeenayaa oo Puntland laga sameeyay. waa mar kale iyo furihii nabadda oo la helay way. mar hore furihii dawladda oo lumay waxaa laga helay Puntland. maanta tabar kastaba hala aatee Soomaaliya dawlad baa ka jirta, waxaana furahaas laga helay Puntland baa bilowgii laga soo helay ilaa dawlad haddaan laga waayinay loo wada dhan yahay Muqdisho ay macnaha maanta ka shaqeynayso. mar kale ayaa bulsho burburkii Soomaaliya ku dhacay dawladdu intayna dumin ka horba, xilligii dawladdu dumaysay ka hor bulshadii baa burburtay oo haddaan laga waayay dhaxdooda ceeqe iyo xumaan iyo naceeb la dhex dhigay. furaha isaga ah oo lumay maanta haddana Puntland baa laga helay furihii dib loogu dhisi lahaa wanaagii iyo kalgacaylkii iyo karaamadii iyo isxurmeyntii iyo qaraabanimadii dadka iyo tolnimadii iyo haddaan xididnimadii ka dhaxaysay in dib loo dhiso. furihii dhumay Puntland baa haddana laga helo laga bilaabay. golaha walaaleynta bulshada iyo qabyaaladiidka waa arrin muhiim ah oo la bilaabay. waa heshiiska meeshii laga bilaabayay, waa haddaan alla laga waayinay meeshii bulshada laga soo dhisi lahaa weeye oo furihii dhumay ummadda kalgacaylkii ka dhaxayn jiray iyo soomaalinimadii iyo wanaaggii iyo karaamadii ummadda meeshii macnaha laga soo bilaabayay halkaasay noqotay. waa ilaahay mahadiis, waanu idinku mahadnaqaynaa. guntiga dhiisha isaga dhiga. maanta Puntland bay ka bilaabatay, waxayna wada gaadhi doontaa dhammaanba gobollada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waddanka Soomaaliya. waxa kale oo marka idin sheegayaa inaad ka taxadartaan wax kastaba. Soomaalidu waa ayada tiraa quraankii alif wax ma leh ku qalloocda albaqro kuma tooso. marka ruudka wax laga bilaabahayo halkaas weeye meesha maaragtay wax kasto inaad bilaawdo aad rabto markii la bilaabayaa laga taxadaraa. marka waxaan ka wadaa golahani golo wanaagsan weeye, waa bilow wanaagsan oo aad iyo aad macnaha ummadda Soomaaliyeed u soo kabi doona weeyo. maanta meesha aad ka bilaawdeen waxaad isku daydaan waxa aad la dagaalamaysaan inaad garataan iyo waxa aad kabi rabtaan oo aad soo celinaysaan garta horta. waxaad la dagaalamaysaan qabiil ma aha, waa inaad fahantiin. waxaad la dagaalamaysaan waa qabyaaladii la dhex dhigay qabaa'ilada oo nacaybka iyo xiqdiga iyo xaasidnimada laysu adeegsaday oo bulshada dhexdeeda dhibaatooyinka iyo nacaybka iyo burburka lagu sameeyey. taas ayada ah weeye waxa aad maanta maaragtay aad la dagaalamaysaan oo dib u dhisaysaan. waxaad dib u dhisaysaan kalsoonidii ummadda ayaa dib u dhisaysaan. waxaad walaaleynaysaan bulshada walaalaha ah oo walaaltinimadoodii coltooyo loo dhexdhigay si qabiilka loo burburiyo. ujeedadu waxay ahayd qabyaaladanba waxa keenay waxay ahayd markii qabiilka lala dagaalamayo oo qabiilka in la burburiyo la rabay oo dawladdii militarigu inay qabiilka ay jebisa markay rabtay baa waxaa la istusay siyaasadaha xilligaa jiray. waxaa la istusay waxa weeye awooddan qabaliga ah oo isku xidhan in la burburiyo si macnaha dawladdu ay marka qabiilkeeda ay u yeelata qabiil gooni oo dawladda kaliya ku shaqeynaya, qabiil kalena uusan jirin. qisadu meeshay ka bilaabatay halkaasay ahayd. qabiil kasta marka waa kii la burburiyey oo la ataagay ilaa dee burburku uu gaadhay shakhsiyaad marka dadkii markii la kala yaaciyo fura la-aan ay noqdeen kii la doonana waxaa laga dhigayay buul oo waxaan waxba ahayn baa laga dhigayay. kii la doonana durbaanka ayuu tumi jiray. marka waa meeshii arrintu ay ka dhoobaysatay bay ahayd oo bulshada burburkeeda uu ka bilowday. maanta meesha in laga dhisa weeyo. marka waxa weeye waxaad isku daydaan inaad taxadartaan. qabiilka ha la dagaalamina. qabiilka waa in la xoojiyo. waxa lala dagaalamaya waa qabyaalad. fahma inaad fahantiin wey. qolo kastoo isku dayda inay wanaag sameeyaan qabiilka iyo qabyaalada markii laga hadlayo way kala saari la'yihiin, way kala fahmi la'yihiin. waa in qabiilka la xoojiyo oo qabyaalada lala dagaalamo.
wixii dadka la dhex dhigay oo xumaanta ahaa oo qabiilka lagu burburinayay in dadka dhexdooda laga saaro oo wanaagoodii iyo xurmadii ay isu hayeen dib loogu soo celiyo wey arrintaa halkaas bay daaran tahay la socda golahan waxaan ka codsanayaa inay kaashadaan isimadu waa hogaamiyayaasha ruuxiga ah ee qabiilada isku xidha wey waa wanaagii iyo sumcaddii ummadda wey waa hogaankii ruuxiga ahaa waa inaad haddaan alagaya la shaqaysaan oo aad halka ayada abbaartaan waa in sideedaba golahani uu noqdo gole meel walbe gala ah dowladda waad la shaqaynaysaan laakiin siyaasad dawli ah oo aad wadaan ma laha dowladda aad la shaqaynaysaan ummaddii yay sharcigii u hayaane taas darteed waxa weye inaad la wada shaqaysaan waa qasabe laakiin de ayaga uma shaqaysaan de waxaad u shaqaysaan bulsho weynta soomaaliyeed oo dhan baad u shaqaynaysaan especially de maanta waxaan ka hadlaynaa puntland bay ka bilaabatay bulshada reer puntland oo dhan baad u shaqaynaysaan dowladduna bulshadaasay ka mid tahay oo ay waxyaabaha la daweynayay ka mid tahay haddaan wada shakhsiyaadka la daweynayay ka mid tahay qabaa'ilada la daweynayay ka kala imaadeen marka sidaa darteed dowladdana wada shaqayn inaad yeelataan weeyo laakiin ayaga inaad u shaqaysaan ma aha adinku ummadda ayaad u dhaxaysaan ood u shaqaynaysaan waxaad ka madax bannaan tihiin wax adinka jihada idinka leexin kara oo dhan waad ka madax bannaan tihiin oo wax idin leexin kara ma laha waxaad u shaqaynaysaan waxa weeye inaad dadka mobilization lagu sameeyo oo xiqdigii iyo xumaantii la dhex dhigay dadka laga dhex saaro laakiinse awoodda qabaliga ah waa inay dhisnaato ood xoojisaan wey in la xoojiyo oo qabaa'ilada dhexdooda wanaag la dhigo oo meelaha connectionka oo silsiladaha ah oo qabaa'iladu ay iska galaan oo deegaamada ah in la tago inaad tabliiqisaan oo socotaan wey oo aad miyiga tagtaan wey magaalada keliya inaad iska dhex socotaan ma aha dadku miyi magaalo markii la yidhaha miyigu dadku u badan yahay magaalada dadka populationka markii la fiiro miyigu u badan yahay oo ka imaaday marka waxaad samaynaysaan tabliiqiya oo ilaa miyiga aada meelaha qabiiladu ay iska galayaan oo xuduudada ah oo qabaa'iladu ay iska galaan meelahaas fadhiista oo halaysu loogo oo haddaan laga waayo loogaan kuu sheegayna waxa weye hala fadhiisto oo macnaha haddaan laga waayinay dadku sidii dhaqanka iyo hiddaha ahaan jirtayba isimada ayaad arrintaa ka kaashanaysaan iyaga ayaa yaqaana dhaqanka bulshada adinkuna dhaqanka bulshadaad ka imaadeen oo ummadii baad ka mid tihiin oo aqoon-yahanadii ummadda ayaa tihiin dabcan iyo guurtidii ummaddaba sidaa darteed waa inaad abbaartaan hogaamiyaasha ruuxiga ah oo ay idin idmadaan ayaguna oo idin idmadaan arrintan aad fulinaysaan inay tahay arrin qabaa'ilada iyo bulshada ay maamulaan oo ayagu ay hogaamiyaasha u yihiin oo ay hogaamiyaasha ruuxiga ah u yihiin oo lama taabtaanka ah ay u yihiin inaad macnaha exit ay idin siiyaan ood ka ducaysataan oo wixiina wax smooth oo wada shaqaynhaya ay noqdaan baa laydinkaga fadhiya ilaahay bay tiista tahay sidaasoo kale waxaa loo baahan yahay ururada dhalinyarada inaad kaashataan maanta dhalinyarada reer puntland waa dhalinyaro lagu daydo waa dhalinyaro wax wanaagsan sameeyey waa dhalinyaro quruxdii ummadda muujinaysa waa dhalinyaro shaqaynaysa ood aragteen oo iskaa ku shaqaynaysa gobolladii kalena already way bilaabeen kudayasho wanaagsan wey waxa ay meesha ka sameeyeen waa kudayasho wanaagsan ayagana waa inaad la shaqaysaan haddaan laga ummadda muraadii ummadda weeye waa dad wanaag u diyaargaroobay oo dad wanaag fahmay weeye inay lahaanshihii waddanka leeyihiin wanaaggiina ayaga in loogaga fadhiyana way ogaadeen sidaa darteed dhalinyarada la kaashada ururada bulshada oo dhan la kaashada haddaan dhalinyarada markaan ku leeyahay dee dhalinyaradu waxay ka kooban tahay rag iyo haweenba ayay ka kooban tahay marka haddaan alaga waayinay waxaan idinka codsanaynaa inaad ka taxadartiin in macnaha waxa weeye wanaaggan ilaahay idin bilaabay ood bilowdeen inaan macnaha aanan maaragtay aynan wax qalad adnaan ku dhicin wax qalad inaan ku dhicin way waa in hoggaankan waa in la sameeyo haddaan laga waayinay golahani waa in qabaa'ilada oo dhan qabaa'ilada puntland degan oo dhan inay iska dhex arkaan way arrinta fiiri haddii qabaa'iladu ay iska dhex waayaan oo hoggaanka haddaan laga waayinay golaha dhexdiisa goluhu noqdo dad yaroo is aruursada ay noqdaan meeshaas ayada ah waxay noqonaysaa wax dad group ay wataan bay u muuqanayaan
marka sidaa darteed taas ka taxadara waa in qabaa'ilada markaad waxaan systemka yagii lama bedeli karo dhagaysta waxaan idin sheegayaa war waxaad la dagaalamaysaan qabiil ma ahane la socda qabiilka waa in la xoojiyo weligii wuu jirayaa waxaad la dagaalamaysaan waa qabyaaladiida waad garanaysaan sidaa darteed waa in qabaa'ilada Puntland degan oo dhan ay golahan ka mid yihiin tinka bare marka waxay noqonaysaa wax qabaa'ilada Puntland degan oo dhan ay wataan bay noqonaysaa mabda haddaan la udub dhaxaad leh oo haddaan laga waayo qofku uu aaminsan yahay oo dadka wuxuu u sheegay oo kala garanaya oo san ahayn qofku qof qabiil ataagayo inuu qabiilka furfuro ujeedadu inuu qabiilka kala furfuro inaynan ahayn laakiin ujeedadu ay tahay in qabiilka la xoojiyo oo qabiilka la isbaro oo qabiilka dhaxdooda xumaatada iyo xiqdiga laga dhax saaro oo waxay ku midaysan yihiin dadka loo sheego waxa ay ku midaysan yihiin oo mabda ah oo dal jacaylka ah oo dad jacaylka ah oo biyadan inay wada leeyihiin oo lahaanshihi wadankan ay wada leeyihiin oo ay xuduntoodii wada tahay halkaasna laga goosho oo qabiilnimadana haddaana laga wayna qabyaalada qabiilka loo adeegsanaya la joojiyo oo naceebka qabyaalada qabiilka dhexdeeda lagu abuurayna la joojiyo arinta ayada dana gaara group gaar aba dana gaara ka watay arintaana waa tii wadanku ku burburay bay ahayd taas marka waxa way burbur dambe waa inuu san dhicin waa inaan qabiilka la fareegelinin waan idin sheegaynaa qabiilka hogaamiyaal ruuxi aba jira hogaamiyaasha ruuxiga systemkooda taabuu way lama taaban karo waa taabuu believe me rumaan idin sheegaya in qola kasta waxay isku dayaan oo dawladaha markii ay dhismaan dhaqan aan shaqul ku lahayn ha isku dayna ummadda inaad ku qaribtaan oo corruption aad ku samaysaan isku dayna waa inaad abaartaan sidoo bulshada ay u dhisan tahay ku xidha dawladda dhaqankayaga iyo systemka dawliga ah waa inaad isku dartaan oo aad casriyeysaan oo modification lagu sameeyo way waxa la idinkaga fadhiya taas way sidaa darteed golaha kani marka taas dawladdan u sheegaya iyo macalaadinkaba systemka iyo haddaan in lagu waayinay dadka in la walaaleeyo oo xaqdiga laga dhax saaro waa inaad waxba wada shaqeeyaan oo xirfad waxaas la isu dhaxgelin kara inaad la imaadaan baa loo baahan yahay bulshada waxaan ka codsanayaa inaad la shaqeysaan oo ummadda tan karaamadeedii dib loo soo celiyo waxaan idinka codsanayaa bulshada dhammaanba bulshada reer Puntland waxaan ka codsanayaa in haddaan laga waayinay golaha inaad la shaqeysaan oo mar kastaba la wada shaqeeyo ilaan waxa laga shaqeynaya waa meeshii ummadda maartay laga soo baritaari lahaa weeye marka halkaas ayada ah awoodda ha la saaro ummadda dhan ha u hoggaansanto dadka dhan ha iska dhex arkaan gobollada kale oo dhanna ha la gaadhsiiyo ilaahay bay tiisa tahay abshirta allahana waafajiyo dawladda waxaan ka codsanayaa in golahan la xoojiyo oo wixii haddaan laga waayinay loo fududeeyo socdaalka iyo meel kasta iyo wax kasta ma garanaysaa sidii loo wada shaqayn lahaa laakiinse wax haba yaashe interruption ah systemkooda inaana lagu sameynin wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.